dadaan maanta inoo soo diyaariyay de anigu saa u dhahay yaabay ama kaage waa daalay idin kale magac u sameeya laakiin qadiyadan waxay ku baraysaa bini aadantinimada iyo ma aragtay in qofka ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu noo abuuray aanan dadku isku mid ahayn isku caqli ahayn isku aragti ahayn oo ma aragtay qofte aad leedahay qofkan subxaanahu qofkan لما بهلي كربا إنه إله سبحانه وتعالى إله يعني دينته حشيكسا إنه إله مقلب القلوب يعني قلب يدين وبتبدله دمين قفك عشرة جعل ما أنت مجعلت قفك ما أنت أدونك ونعتبري أضوج على أركيسا حواسا تصال الله قد يجن كرا مقلب القلوب تقلب يدين إنه إله بتبدله سو مركا حنو ما قاني حدا ده بريهان دبنا إلهي كإذا هاي أمريكا ماشي لجوه جلوه بعي لما ده هايو ماشي في عناد رير أمريكا أربعة تذكر كسر علي سيرة مغلب فهتي سو اللي سو علي مرة بالمادر يلا ماشي صوص عضايا بإلهي كإذا هاي ماشي وناكسن أمريكا هذا دو إلهي كإذا هاي أصلا هاي سكر الديارة let's go. A few moments later. inta ay interview waxaas ay ka dhamaanayaan oo aan go'aaminayno qofka qaadan doona iyo ina anaga dib noogu soo noqon doono miyuu idin la joogaysta okay markaas ay dhaheen Dennis family-geedu may anaga ma rabno inuu la joogo waa Dennis hooyadeed iyo aabaheedii soo ayadaba soo adapt gareeyay bas wiilkii yaraa markay diideen family-gii Dennis waxa la sameeyay waxa loo geeyay Amy حاجة كو نقاني قصة هورانتي دواتي Amy هي دنيس عندها هي درس school best friends كذا واي Amy دي قاعدة توتري ده يا حبت كوجر توتري ده صاحبتي مرة ولا شيء دي أساسا كانوا ويل كذي أنا اللي جوجا أنت interview يدني وحنا كذا معنا يعني بس Amy بالوجي مركا إن Amy بوسكلي جوجا عبار إن aad bay Amy ugu attention keeda u siinaysa canuga u keergareynaysa u caawinaysa asagana de awal buuxu iska ahaa wiil yar oo firfircoon oo positive ah oo de masha Allah firfircoon ama furfuran saa u fahanteed buu ahaa xataa dadkii tacsida hooyadii imaanayay uu soo dhaweynayay waji fiican uu kula hadlayay hadalla fiican laakiin waxyaabaha la yaabka lahaay oo markaas lagu fikirayay oo dawladda dadka dhan uma fiirsanin Dennis hooyadeedii aabeed ay markaas excuse ay ka dhiganayeen wiilkan yari yani uma eko qof muruga heeso uma eko qof hooyadii waayay waa hooyadii canug 4 jir ah qofkii soo koriyay buu hooyo u maleeya so uma eka in qof hooyadii dhimatay uma eka so umana eka qof murugaysan uma eka qof oynaya so canugan waa ka shakisanahay ay dhahayeen Dennis hooyadeedii aabaheed bas dib inoo celiya marka anaga tacsido halkaas noogu ekaatay dib inoo celiya Dennis qofka marka laga shakisanaas at that moment Carlos ma aheene wuxuu ahay Ajay qasada magaceeda ya Ajay maana Ajay marabina adaho ilaahay ku idmahayo almuhim Ajay yaa waay Ajay intuu noogu yimid hadana qasada bana Google ma jirine Ajay waa wiil yar oo la iska eriyeen family Hindi ah waliba hooyadii waxay ku dhashay single mother-nimo markay dhashay kadib waxay tiri uma baahnaan canugan uma baahni mana korin kari dawladda iska siisay adopted ayay ku soo sameysay Dennis waa ilmihii labaad Ajay marka waa ilmihii labaad oo adopted ahaan loo soo qaato okay Ajay marka ay Dennis ay soo qaadanaysay waxay uga dan lahayd si Carlos uusan u dareemin cidlo si uu yani wehel u helo walaal baby walaal u walaashado wasayda ayada markaas dadka u dhow ay ugu sheekeynaysay ama ay ku qancinaysay
Carlos iyo Angel marka waxa iyo Dennis saddexdoodas waxay wada deganaayeen gurigii webiga ay wada degeen. Okay, Dennis marka maalmaha kamida ayay booliska wacday markay canugii soo qaadatay ee loo ogolaaday kadib bilaamaha amniga wacday waxay tiri wiilkaygii aan soo adopted gareeyay ee Ajay uu iga baxsaday. wiilkii yara waa la raadiyay 4 saac wax ka yar baa lagu soo celiyay laama amniga markay gurigii keeneen oo Dennis gurigii hooyadii oo marka hooyadii markaas qaadatay qolkiisi marka la fiiriyay hal sariir kaliya taalo iyo hal barkin iyo hal duvet kaliya ayaa taalo. waa qabow mararka qaar roob da'ayo yani wax kale material oo ilmo loogu tala galay ma yaalaan. Okay, markii Dennis la weydiiyay Carlos qolkiisa markaan fiirinayo qolka Ajay isku mid ma ahan isku mana dhawa maxay ku dhacday baa waxay tiri Ajay asaga ayaa canug xanaaq badan oo canug markuu xanaaqo alaabadiisa intuu qaado ayuu ka soo daadin jiray bay tiri daaqada guriga webiga ugu yaal marka waa G+1 waay kor iyo hoos waay soo koray deganaayeen hoosna living roomka iyo hooyada deganay laakiin labada wiil koray deganaayeen iyo hal musqula ugu taalay. alaabadiisa markuu xanaaqa bay tiri walaalkii istagaal ama anaga isku dhacnabo alaabadiisa wuxuu ka soo daadinayay windowga qolkiisa soo markay jajabtan dad iska tuurinay tiri ana mar walba wax la tuura le ma keena. Okay, kadib ayadoo marka Carlos canuga waxaa kaloo markaas la ogaaday oo wiilkii yaray Ajay oo sheegay in Carlos iyo hooyadii ay dili jireen oo ay abuse jireen oo ay si xun ula dhaqmi jireen. marka laama amniga markay u soo celiyeen wiilka asaaba oo yiri marabi inaan la noolaado because way dilaan asiyadii wiilkeeda way abusean wayna iska kayta kooraan ilmaha jecla. bas wiilkii yaraa Ajay waxaa la siiyay family kale. arrinka marka Ajay Dennis waxaa lagu furay maxkamad maadaama canugay adabta gareysay uu ku eedeynay inuu abuse gareey. qurbaan ilmaha haduu ku dhaweeyay baa ii hanjabtaa kugu filan ina ilmaha dhan ba laga xabsado waa ognahay ilaahay nagu amaansaday. Dennis marka maxkamada lagu furay shaqadeedii luz gareysay laakiin Carlos baa mar waliba hooyadii garab siinay oo difaacay oo yiri hooyaday waa hooyo fiican Angel marka okay canugan magaciisa Angel waay baba dhahay Ajay martambe Angel ayaa la laakiin Ajay way u soo gaabinayaan marka magaca gaabinayaan waay laakiin Angel aan dhahay wixii ka dambe Carlos marka wuxuu ku marxaati furay canugii loo keenay dambe wuxuu yiri Angel asaga ayaa xanaaqs badnaa mar walba nala dagaalamayay mar walba hadii erayar la dhaho xanaaqay alaabada guriga jijibin laakiin hooyada hooyo fiican waaye aniga friend ila tahay wax walba rabay ii qabata xubay ii sameeysa way ii support gareysa mar walba eray xun ima dhahdo way ii dhiirigeysa iyo waxyaabo lamid ah bas. Okay, markii dilkan oo dhacay canuga Angel wuu maqnaa muddadii marka hooyadii marka muddadii wiilkan yar maxkamadiisu ay socotay shaqadeedii ku weyday Carlos xataa waa laga qaatay oo waxa lagu yiri maadaama wiilkan yar qadiyadiisa inta uu ka dhamaanayso kan kalena waa ka qaadanana. bas dawladda marka laga qaatay oo dibgal la sameeyay waxa la ogaaday Angel inuu been sheegay cid abuse cid wax u dhintay aysan jirin sidiiba haddana dawladdu mar labaad ay Carlos ugu soo celiyeen markaas ay tiri Angel la ii soo celiyay wiilkayga markaas lagu yiri may Angel ma rabo inuu ku soo laabto anagana kuma soo celinayno maadaama yani hal mar la isku dhaciyo maxkamad ay gaadhay Angel waxaan siinaynaa family kale Carlos baan ku soo celinaynaa. bas Carlos iyo hooyadii saasay marka ku wada noolaayeen. Angela marka looga shakiyay dilka maadaama hadda koor uu yiri way abuse jirto canug xanaaq badan oo blackon naftiisana aan controlin uu yahay waa laga shakiyay laakiin laamaha amnigu boolisku markii hada xasotaan waanigii idin dhahay guriga Dennis waxay ku xiratay kaamiradahi ay rabeen laamaha amnigu in ay daba galaan si loo ogaado habeenkaas dadkii guriga soo gal wiilku sheegay Carlos waxaa la arkay kaamiradahi oo laga wada fujiyay meel la geeyna aan loogeyn
waxaa kaloo intaas ku dheer telefonkii Dennis xataa waa la waayay taas waxay ku cadeysay in telefonka Dennis qofkii maamadan dilay uu qaatay kaameradahana asaga leh uu fujistay bas waxay sameeyeen marka laamaha amnigu fikrad fiican ay keeneen maadaama webigu u dhawaa familigan gurigooda aad ugu dhawaa dhowr talaabo isu jireen waxaa la keenay dadka laamaha amnigu waxay keensadeen kuwa qoosa webiyaasha waxaana laga soo guray webigii dhexdeeda oo laga soo saaray telefonkii Dennis wax kaloo laga soo saaray kaameradihii guriga ku dhagsanaan jiray ee laga fujiyay okay dambi baarayaashii Angel ayay intaas qadiyadii marka waxay ku wareegtay Angel oo waxa looga shakinay maadaama anu xanaaq badan iyo balaaye iyo maamadan isdagaal inuu asaga xanaaq u dilay laakiin waxa kaloo loo ogaaday habeenkii maamadan la dilayay Angel inuu ku jiray jeelka so qof jeel ku jira soo qof u dila qof human being one time laba meelood kala ma joogi karo so Angel marka tamaman waa laga fageeyay qadiyadii waxa dhahay no waxba khaldan amal okay marka Dennis la dilayay jeelka uu ku jiray dib ayay u soo laabteen baaritaankii marka waxa marka la focus gareeyay saaxiibkeen Carlos ayaa hadda laga shakiyay sababtoo ah habeenkii asaga guriga joogay asaga ay weeye markhaatiga kaliya ee la haysto si qadiyadan loo xaliyo no way kale habeenkii markii wiilka interviewga la geeyay waaniga idin lahaa laamaha amnigu guriga ku soo laatay si baaritaan loo sameeyo daaqadaha fingerprints raadka waxyaabaha aan naqaanay okay waxaa la ogaaday habeenkaas wuxuu sheegay dhowr rag ayaa sii ordayay horta first of all qof kale raadkiisa maalinkaasi areadaas waa laga waayay because gurigu maadaama guri webi u dhow wuxuu ahay caro so raadka Angel Dennis iyo raadka Carlos kaliya ayuu ahaayeen yani hooyadii wiilkii iswatay soo baashaalay kaliya halkaas waxay noo cadeynaysaa inuusan qof kale soo gelin gurigaas habeenkaas eeyihii uu Carlos nagu lahaa ee qaylada eeyahan ku soo kacayna dariskii u dhawaa waxay yiraahdeen habeenkaas anaga ee qaylinayo totally maba maqalba halkaas wiilkeenii Carlos beenuu noo sheegay laakiin team dambe baara ka dambe dilay goodbye niyada noo dhisayno wax uu qaat okay waxa bilaabatay in Carlos laga shakiyo raadka kaliya ee laga helay gurigaas raadka Carlos buu ahaa Carlos marka la sii daba galay balaayooyin badan banaanka u soo baxay waxa kamid ah Carlos in uu gadaayay nacasta Carlos in uu iskuulka sanadkaas u ahayd in uu jaamacada galo laakiin hooyadii uu isaga dhigay in uu university-ga oo isku xareenayo oo already apply gareystay laakiin ay tahay been oo lacagta xataa uu ku hooyadii lacag ba u baahnayna university-ga is register gareeyo ay naqatay been iyo kale inuu nacasta gado iyo kale inuu asxaab xun oo de nacasta iyo khamrada iyo balaayo baqtida wada dhuuqo oo saaxiib leeyahay soo qof nacas gada nacasna isticmaala any minute ayuu qof human being adduunyadan iyo noloshan oo dhaafin kara okay waxa kaloo la ogaaday in hadda ka hor dilka dhowr beri ka hor ay Dennis wiilkeeda guriga ay ka burisay ay isku khilaafeen jaamacad baan yaad gali iyo marab jaamacada college aan gali ee hooyadii ku tiri intaas oo sano waxaan wax ku soo bareen kugu soo tacbaayay ma aha inaad college gashiday jaamacadaad gali hadii aad college aad gashid dhaqaalaha adiga iska fargareynaysid gurigeygana waad iiga tagaysaa dafant meelad ku noolaatid iyo wax ka bixiyo lacagtaba raadso ana haygu tashanin laakiin hadii aad college gali hadii aad jaamacad ama university aad galaysid ana ku garab taagan waana sababta uu lacagta uga qaatay oo university-ga hadda ay faanteen oo maleena waxa kaloo la ogaaday wiilkan in uu daawooyin qaadan jiray oo uu qaaday xanuunka la yiraahdo depression-ka okay
waxaa kaloo la ogaaday habeenkaas haddii aad xasuusano interviewgii koowaad markii la weydiiyey lagu yidhi habeenkaas halkee joogtay waa kii nagu yiri markaan aniga hooyaday aan soo laabanay musquleystay kadib telefonkan video ka daadaawaday andan waa seexday telefonkiisa markii la baaray waxaa la ogaaday habeenkaas inuuba telefonka gacanta ka dhigin uu habeenkii oo dhan telefonka uu isticmaalayay telefonadaasa idin sheegay waa rufyaano aan wadano isma ogi laakiin rufyaano aan wadano waay okay waxaa kaloo la ogaaday habeenkii marka uu waxaa kaloo la daba raacay oo la ogaaday locationka telefonkiisa marka uu laamaha amniga ama booliska uu wacayay wuxuu joogay webiga maba jooginbo guriga uu kamuusan soo wactay markuu soo wactamay wuxuu joogay webiga waxay marka laamaha amniga masaba dambi baarayaashu u badiyeen marka uu webiga joogay inuu soo tuurayay telefonka hooyadii iyo kaameradihii webiga laga soo saaray okay kale oo ay asxaabtiisu sheegeen asaga asxaabtiisa Carlos asxaabtiisa iyo Amy in ay Dennis ay ka baqi jirtay wiilkeeda oo in uu yani biyomnil ayyam nafta ka qaado maadaama mar waliba waxyaabaha uu asaga jecel yahay ay ku hor joogsato day hooyo waay wiilkaaga nacas gadaya darkiisid wad u baqaysaa asagana waxa iskaga dhigaysaa dad qof adag weyna hooyo adag indhaha ka galaysaa laakiin inside-ka hooyo baa dareemi karta sababta keentay hooyadu in ay gurigeeda kamerada ku xiratana waxaa kamid ah in ay nafteeda u baqaysay oo wiilkeedu uu guriga dhexdeeda ku gadi jiray nacasta darisku xataa waxay sheegeen in ay arki jireen rag aysan garanaynin madow iyo cadaan iyo nooc walba leh oo guriga Dennis galaya ka soo baxay habeenkii ama soo marka ay Dennis shaqada ku maqan tahay ayay imaan jireen markii darisku u sheegeen weeye waxay ay nafteeda u baqday ay cabsatay ay kaamiradaha ku xiratay okay markii waxaa soo dhan la soo wada ogaaday baa Carlos mar labaad interview loo bilamiyay waxaana lagu yiri afcad ayadoo lala gabanayay lagu yiri waan ognahay inaad hooyada adigu dishay sana muddadaas ay iskhilaafteen ay guriga ka boriday oo soo noqotay oo college-ka aad rabtay oo ku tiri university iska soo qoraya Allah ka qaatay university iska soo qortay aysan jir oo nacasta gadaysay waxaan soo akhrinay oo dhan telefonkeedana qofka webiga ku riday isiye kaamiradaha guriga waxa ka fujiyay isiye habeenkii markaad anagana soo wacaysay laamaha amniga aad soo wacaysayna waxaad joogtay webiga agtiisa soo webiga waxaad ka qabanaysay adan noo sheegi doontid dabcan qof walba mowqifkaas ku joogi la booskaas asaga taagan ilaaban ma istaajadu taagan una xaya fir okay runta idin sheegaya hooyaday ana dilay sababta u dilayna waxay tahay way qayla badneed sibayba u qayla badneed baaba igu hortimidba all the time ayada ku try garanaysa inay approve garaysa inay ayada saxan tahay oo all the time aniga aan khaldanahay oon ahay qofka qaldan soo habeenkaas markaan soo baashanay banaanka oo soo wareegnay oo soo noqonay ayaa waxaa dhacday uu yiri in ay hooyaday igu qaylido oo isku kacnay wali wax basidaas ku kacnay buu yiri waxay ugu tiri university ma soo apply garaysato ha okay dharkaaga diyaarso hadaba si aad isku xiriisid iyo aniga marabin no university inaan isku xareeyo inaan long distance aan wax u barto aan isku khilaafnay marka maadaama habeenkaasna yani nacastii waxa balwada iheysay buu yiri awal markaan isku kacnaaniyo hooyaday waa iska bixi jiray balwada doonan jiray habeenkaas laakiin lacag ma aanan haysan ayadna way igu adkaysay soo markaan xanaaqo waxaan u bartay inaan banaanka u bixin qoryaha jijibiyo oo qaato wili gudun baa waqana baashankeeda lagu jibiyo Soomaali waa badan yahay commentiga ku reeba lahjadaha kale guduntii baa qaatay waxaan rabay wili in aan jijibiyo qoryaha laakiin hooyaday baan u soo laabtay wili ayadoo hurda guduntii dhabarkeedii baanan madaxa kaga garaacay guduntii iyo kaameradihii iyo telefonkeedii wixii oo dhan webigan ku soo riday
markaasaa lagu yidhi did you feel sorry inaad hooyadaa dishay? wuxuu yidhi no. markaasoo kale waxaa ku qabanaysa cuudu billah, awlaadeen lama dhahe, waxaa la dhahaa awlaad baaray ah ilaahuna sii. 14 bisha 9 2021 haddana soo dhaafay baa wiilkan la maxkamadeeyey, waxaana lagu eedeeyey in uu galay dilka darajada 1. qadiyadeena maanta inta ayay ku eegtaa, bal wixii talo iyo tusaale aad qabtid qaybta commentiga igula wadaag. ilaa iyo hadda aad videoga daawanaysa qalbigaad ku taala waad mahadsantahay. marxuunkana faataxada u mara. 2 beri kadib 1 sano ayuu kasoo wareeganaysaa intuu mootay inuu ilaahay qabrigiisa u waasico, kitaabkiisa midigta ka siiyo, martii la jecel yahayna ka dhigo. annaga iyo asaga intii musana jannada kuwii ku kulma rabbi naga dhigo. allahumma aamin ya rab. waxaa idinkaga tagaa intaan ka kulmayno video lamida fi amaanillah.